السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجانيوري سياد أوكتين ماشان كم عصبني مر بدن ماشان وسوء إيماني أو أريم كامبين إيو سياسة وسوء إيماني ماشان ما مدن حدا لك الدواجسي لكن واحد أوقاتين نين هور لصور دورتي أو أنا إقف عن ملهات وجر تاس أوقات واحد أوقاتين وحاول سدح جوران سوق اللي كامبين ماشي لقي صدر كل وقتي السنت السنة وايري ماشي أنجار واينين راديو هنتجاي مس كبعدين وهنتجاي انت ده يسوي وجر أنك هالله حتى مقع جنوري وكشيء ماشي عادي نجعله كرفي عنه ويجي صار دعي ماشي سدح دي جوربه 0.75 تنكلنا عد وحنو تاجنا كرسي سنتها سفرتي هورو حوغو كوريه والغغبيناي حتى سنة هامو تاغانا هاي مامدو waxay tiri boqolkii konton aad helaysiin waxaan jecelnahay safartan boqolkii boqol inaad nasiisiin Dr. Hassan waxaad ugu siinaysiin anaa la jira horta oo wiilkiina yahay hor sanata wajeer west ki imaaday wajeer lagama soo darto hata wajeer west sanata ayaanahay wiilkiina anahay wixii meesha lagu qaybin doono ana meesha idin joogi doono insha Allah tan kalena waxa aad loo sheeganay meeshan oo baashan ay garooq ay joogto waraaba dad asku dhameynay mar badan waa la sheegay anigu warqad badan waan qornay arimaas ide laakiin arintaas ide waxa la rabaa county government inay wax ka qabato county government waxa buu qaban ways meeshan laakiin Dr. Hassan waan u sheegnay waxaan rajaynayaa inuu shaqadaas uga qaban doono oo meesha ide la banayn doono anigana agtiis unaan fariisin doono mar walba aan leeyahay meeshii maalintii ballant aan qaadnay oo ganyure waa in shaqadaas laga qabto Dr. Hassan sidaad u garanaysiin waxaan ugu soo qaadanay waxa waaye dad badan aan soo doorani governor intaas oo bilyan soo gashay Wajeer County maamada waxay ka sheegaysay isbitaalka dhibaato badan ay sheegtay isbitaalka ganyure waana jirta meel walba ka aragnay wax kale oo jirtana biyo waxa magaalo aan soo aragnay oo maama iyo gabadheed iyo cunug yar ay ay dileen kawka siiyeen ma fahamtay Wajeer kan gudaheed taasna waxay keenaysaa maamul xumadu way oo ka socoto Wajeer lacag laan ma lacagtu waa haysanaa hadda waad maqlaysaa Kenya kale oo leh Wajeer iyo Mandera lacagtooda badan ah laga gooyay laakiin lacagtaas ide jeebdeeda gashaa dad waxba uma qabato waxa laga yaabaa boogugta dalabwaara hadda Wajeer County wax oo staal mis wax walbaba oo qariib almost 100 milyan in loo dhisi loo qori oo meeshan aan yaalina laga yaaba taasna waxay u baahan tahay in sanata oo arimaha sida dhaxgala oo fiiri lacagtaas ide loo qoonday ganyure in shaqadaas ide lacagtaas ide shaqadaas ay qabat markaan Dr. Hassan waxa way nin dhakhtar istaal ka soo shaqeeyay istaal uu leeyahay oo isbitaalaha ugu weyn Nairobi waxadana nin oo NHIF ka soo shaqeeyay idoo NHIF oo xabay ahaynin markuu ka soo baxay baashi maxalliga company-gaas NHIFT inuu lacagteeda lacag badan oo meesha ka tagay oo aad u hagaajiyay ata kaarka ana wadna ninkii soo bilaabay asagaas ahay waxaan u mareynayaa ninkan nin oo hantida Wajeer u soo socdo ma inuu dhacmo markaan safartan dadka hala fiiri miisaanka hala saara dadkii Wajeer wax u qaban doon hala doorto taas ka bacdi ana kana sida aan balan u qaadnay number 1 waxa waaye istalaha 2 biyaha iyo maxaa la yiraahdaa dhalinyarada shaqadooda in la siiyo dhalinyarada waa in ay groupyaal ay furaan shaqadooyinka yaryar oo sameeyo meel la dhisaa iyo waxaan lagama raba nin Nairobi ka imaan inuu dhiso waxaan rabnaa dadweynaha meesha ide in shaqadaas ay qabtaan taasna waxaan rabnaa dawladda inay soo gasho arintaas inay ku dadaalaan marka ma sii dheereynay waxaan rabaa in idin bariya kurahan safartan qabiil iyo waxaan fiirinayna ninkii u qalma oo dadweynaha oo reer Wajeer midayn doono
oono hantida si fiican u dhaqaalayn doono ninkaas ide hala siiyo ninkaasna waa Dr. Xasan Moxamed Aadan oo ku magac dheer Dr. Fuje